Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo joogtaanba kusoo dhowaada barnaamijkeeni ciyaaraha iyo guud ahaanba wararkii ugu dambeeyey ee qaaradda Yurub. Aan ku bilownay maamulka horyaalka Premier League ayaa go'aan ka gaadhay dalab uga yimid kooxda Arsenal oo dooneysa in dib loogu dhigo ciyaarta ay bisha Oktoobar la dheelayso kooxda Manchester City oo kusoo booqanaysa Emirates Stadium si aan xidhiidhka kubadda cagta ee Yurub ee UEFA uga qaadan dhibcaha ciyaarta PSV ee Europa League. Arsenal ayaa Isniintii loo sheegay in dib loo baajiyay oo dib loogu dhigay ciyaarta Europa League ee PSV ay ku martigelin lahaayeen, hase yeeshee waqtigii loo mudeeyay in ay Arsenal dheesho kulankan ayaa waxaa isku soo beegmaya ciyaartooda Manchester City ee Oktoobar 19. Premier League ayaa xaqiijiyay in ay Arsenal ka aqbaleen codsigooda ah in ciyaarta Manchester City dib loogu dhigo si ay ciyaartan kulankooda Europa League ee PSV oo la ciyaaraan. Dhanka kale, mulkiilaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa soo bandhigay fikir cusub oo laga soo xigtay waddanka Mareykanka oo doonayo in lagu soo kordhiyo horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League si sare loogu qaado xiisihiisa. Mulkiilaha Chelsea ayaa soo jeediyay in sanadkiiba hal mar la ciyaaro kulanka lagu soo ururiyo xiddigaha horyaalka Premier League oo loo qaybinayo waqooyiga England iyo koonfurta, taas oo ka dhigan in kooxaha reer London ee Chelsea, Arsenal, Tottenham iyo naadiyada kale ee waaweyn ay hal dhinac isku marayaan oo laga soo xulayo hal koox oo loo bixinayo xiddiga waqooyiga, halka kooxaha dhinaca waqooyiga ee Manchester United, Man City iyo Liverpool iyo kuwa kalena laga soo xulanayo ciyaartoyda ugu wanaagsan oo iyaguna hal koox noqonaya. Kulanka xiddigaha Premier League ayaa doonaya mulkiilaha cusub ee Chelsea in loo sameeyo waxa uu u arkaa in ay sare u sii qaadi doono xiisaha kubadda cagta Ingiriiska, hase yeeshee tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa markiiba ka soo horjeestay fikirkan oo gebi ahaanba diiday. Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee Pedri ayaa ka hadlay guuldaradii kooxdiisa xalay kala soo kulantay kooxda Bayern Munich oo 2-0 kusoo garaacday kulan ka dhacay Allianz Arena oo ka tirsanaa Champions League. Barcelona oo inta badan ciyaarta maamuleysay ayaa lagu dilay 2 fursadood oo qaybtii labaad ay heshay Bayern Munich oo ay u kala dhaliyeen Lucas Hernandez iyo Leroy Sané. 19 jirkan oo ciyaarta kadib wareysi siinaya warbaahinta ayaa ku dooday in natiijada kulankaasi aanu ka turjumaynin sheekadii dhabta ahayd ee ciyaarta, balse ay qiyaasta ama qisada dhabta ahi ay ka duwaneyd, isaga oo sharaxay sidii ay wax u dhaceen. Waxaana uu yidhi, natiijadani ma sheegayso qisadii dhabta ahayd. Ciyaartii aanu qaybtii hore soo bandhignay waxay u qalmaysay wax ka badan 0-0, waxaana helnay fursado aanu ku horumarin karnay, laakiin haddii aad ku fashilanto inaad fursadaha ka faa'iidaysato, waa laga faa'iidaysanayaa. Guud ahaanna ciyaartaadu halkaas ayay ku fashilmaysaa. Dhanka kale, tababaraha Manchester United ayaa soo saaray liiska xiddigaha kooxdiisa ee safar ciyaareedka uga tagay kooxda ay Khamiista isku haleelayaan kulanka ka tirsan Europa League oo ka dhacaya waddanka Moldova, waxaana uu ka tagay 5 ciyaartoy oo uu ka saaray gebi ahaanba liiskiisa. Daafaca bidix ee reer England ee Luke Shaw ayaa lagu soo daray liiska kooxda kadib dhaawac fudud oo uu 3 ciyaarood ee ugu dambeeyay ku maqnaa, hase yeeshee Donny van de Beek iyo Marcus Rashford ayaa ka mid noqday لاعبinta 5 ah ee uu tababare Erik ten Hag ka saaray liiskiisa. Ciyaartoydan oo seegay tababarkii subaxnimadii Arbacada maanta ayaa tababaruhu go'aamiyay in aynan ka qayb noqon
safarka ciyaartooda kooxdiisa ay ku tagayaan Moldova, waxaana maqnaanshaha ku wehelinaya Aaron Wan-Bissaka oo dhammaantood ay qabaan dhaawacyo fudud. Xiriirka kubadda cagta ee adduunka FIFA ayaa maalmaha soo socda shaacinaysa go'aanka lagaga mamnuucayo waddanka Ecuador in uu ka qayb galo Koobka Adduunka ee dhammaadka sanadkan lagu qabanayo waddanka Qatar, kadib markii dib u hubin lagu sameeyay ciyaartoy aan u dhalan dalkaasi oo ay ciyaarsiiyeen kulamadii isreebreebka. Ecuador ayaa noqonaya waddankii 7aad ee laga mamnuuco Koobka Adduunka, waxaana ku dhegay oo ka hadhi waayay xiriirka kubadda cagta ee Chile oo cabasho rasmi ah bishii Abriil u gudbiyay FIFA kadib markii ay ciyaarsiiyeen Byron oo ay u sameeyeen shahaado dhalasho been abuur ah iyada oo laacibkani tahriib ku tagay dalkaasi. Ugu dambeynna, kooxda Manchester City ayaa kulankeeda labaad ee Champions League xilli ciyaareedkan caawa ku soo dhaweyneysa dhigeeda reer Germany ee Borussia Dortmund. Erling Haaland ayaa caawa Pep Guardiola u adeegsanaya in uu ka hor tago kooxdiisii hore ee uu xagaagii kala soo wareegay Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ayaa xilli ciyaareedkan difaac ahaan aad u fiicneyd marka laga reebo kulankii RB Leipzig 3-0 ku xasuuqday Sabtidii. Manchester City ayaa toddobaadkan kulan oo ay xilli ciyaareedkan ka ciyaartay guuldarro la'aan ah. Guardiola ayaa haysta rikoodh ah in uu guuleystay mar kasta labada kulan ee ugu horeeya heerka guruubyada, taas oo ka caawinaysa in uu si sahlan heerka xiga ugu gudbo. Guud ahaan qaaradda Yurub, koobka dhagaweynaha ee Champions League ayaa caawa kooxaha ugu waaweyn ee dheelaya waxay kala yihiin kooxda Chelsea oo la dheelaysa Salzburg, Real Madrid oo la dheelaysa RB Leipzig, Maccabi Haifa iyo PSG, Juventus, Benfica, Man City iyo Borussia Dortmund, iyo kooxda AC Milan iyo Dinamo. Guud ahaan barnaamijkeeni ciyaaraha waa naga intaa. Nabadgelyo.